safarkayga guul ayuu ku soo dhamaaday aan kaga qayb galnay African Unionka waxa kaloo aan halkan doonayay inaan xogaa yar idinka ifiyo in dowladda Ethiopia iyo Somaliland ay January kodeedii wada galeen heshiis la yiraahdo MOU Memorandum of Understanding kaasoo taabanayay inkastoo weli public ahayn oo dibadda loo soo saaray laakiin shaqo badan uu baahan yahay in Somaliland ay hesho aqoonsi ay dowladda Ethiopia aqoonsato Somaliland Ethiopia ay hesho naval base MOU intaas inta badan ka kooban yihiin waxaa jiri doona markaa oo la bilaabay in technical teams kii la isku keeno labada dhanba oo kadib la eego oo la isla eego MOU-da si hadhow ay u noqoto agreement ama heshiis ay u noqoto labada dal ku heshiiyeen MOU-da faa'iidada leedahay waxa weeye Somaliland waxay u keenaysaa aqoonsi oo ay sugayeen 33 sanadood ee ugu dambeeyay oo ay dal kale ka helin laakiin aan filayno adduunyadu sanadma ka saanta nooga muuqata inay runtii daba socon doonto oo ay ku dayan doonto Ethiopia aqoonsigeeda saadarteed MOU-gaas aan weli la dhamayn hadhow agreement ka noqonaya wuxuu taabanayaa labada qodob ee muhiimka ah in naval base la siiyo iyaguna aqoonsiga ay keenaan ilaa iyo hadda weli maanaan goyn meesha naval base kaas uu noqon doono taas waxaan doonayaa u sheego dadweynaha Somaliland joogay dadweynaha Soomaaliyeed iyo hadallada qaladka ee lagu fidinayo baraha bulshada Somaliland weli may goyn meesha noqonayso ee laga dhigi doono naval base ka la siin doono waayo waxyaabo badan baa la eegaya environment-ka la eegaya wax lagu eegaya intii soo jiraan barbaraay waxyaabo badan baa la eegaya dibadna waxa hadhow iyaduna ka dambayn doona guddi garyaqaan ah oo caalami ah oo dhowri doona xuquuqda Somaliland iyo faa'iido u leedahay MOU-gaas